casharkan waxaan ku baran doonaa hab kale oo data loo xadido inagoo isticmaalana keyword-ka dhaho limit waxay ku xadidaysaa xogtaada kaba soo qaad database-kaaga waxa ku jira intaasoo kun ama intaasoo milyan oo record haddii aad select all from tiraahdid iyo table-ka magaciisa waxaa laga yaabaa inay cilad kugu dhacdo ciladaas oo ah in xogtii ama database-kaaga culays galo ama website-kaaga ama system-ka ku shaqeynaysid uu cusub marka ma fiicna mar walba inaad select all from isticmaashid mar walba xogtaada waxa fiican inaad limit karaysid limitka waxa loo isticmaalaa kale waxa la dhaho pagination-ka haddaad aragto website-yada qaarkood oo pages leh next iyo previous oo kale waxay isticmaalaan limitka ay isticmaalaan okay haddaba sidee xogteena u limit karayn karnaa halkan waxaynu ku haysanaa saa u jeedaan 10 rows ama 10 oo data ah marka waxaan rabnaa inaan limit karayno select all from students ayaa taqaaniin markaynu u dirnay waxay noo soo saaray dhammaan ardaydii ku jirtay xogteena halkan waxa u jeedaan limit inuu qabtay wax la dhaho kun oo system-kan ayay ku xiran tahay inuu kun ka badan u yeedhin si safety-ga loo ilaaliyo halkan ayaa u jeedaan oo qofku ka dooran karaa inta doontid ayuu ku limit karayn karaa xogtaada system ahaan php asp isticmaalsid iyagu limit male laakiin adaa u samaysan karaa okay waxaan rabnaa in xogtan limit karayno oo soo saarno dhammaan xogta ku jirta table-ka la dhaho student limit aan dhahno 5 taas micnaheedu waxay tahay waxay soo saartaa 5ta ugu horeysa ii soo saar okay kala waxaan leenahay go halkan waxa ka dhaca fiiriya waxay soo saaray dhammaan 5tii ugu horeysay haddii aan rabo sidaas lamada 7da ugu horeysana saas oo kale ayuu igu soo saarayaa 7da ugu horeysa ama markaan rabo inaan soo saaro 4ta ugu horeysa okay barkaba soo qaad haddii rabtid inaad heshid 6da ugu dambaysa maadaama aad 10 row haysatid 4ta ugu horeysa soo saartay markaas oo kale waxaa isticmaali karaa keyword-ka la dhaho offset ayaan isticmaali karaa offset ayaa leedahay 4ta ku xigta oo kale ayaan leenahay waxa soo saartay saas oo kale marka number 5 ayuu ka bilaabay oo u jeedaan oo kor ayuu ka soo bilaabayaa soo marka qaarkood offset-kan waa iskaga tagi kartaa oo SQL version-iskeeda ku xiran tahay haddii SQL 5 kan isticmaalay oo kale waa ka tagi kartaa offset-ka waxa u dhaxaysiin kartaa oo kaliya comma ayaa u dhaxaysiin kartaa shaqadii sideedii hore u dhacaysa marka haddaan rabo inuu soo saaro 5ta ugu horeysa wata haddaan rabo inuu 5ta ugu dambeysay soo saarno waxa leeyahay 5ta ugu dambeysay soo saarado 6ka ka bilaabaya macnaha 5 marka halka ku qoray waxa weeye number 5tan ku xiga ka bilaabo okay space-ka saaciidada inaga haystay ka bacdina marka wuxuu inooga bilaabay 6 marka haddaynu 5ta xataa laba ka mid ah rabno waxaan leenahay 5taas oo dhan ma rabnee 5ta ugu dambeysay xataa waxaan rabnaa 3 ka mid ah ama 2 ka mid ah ayaan rabnaa bacdi wuxuu soo saarayaa 6 7 iyo 8 haddaad sii badisidna mar walba kor buu sii wadaya ilaa 9 ayuu ku sii darayaa marka that is how ay isticmaali kartid offset iyo limit marka qaarkood offset-kan waad iska tagi kartaa waxaad isticmaali kartaa shorthand qaabkaasna waa qaabka xogtaada u limit karayn kartaa